Assalaamu calaykum ku soo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa 10 haween ee ugu da'da weyn caalamka ee ubad dhalay ayaga oo da' ah. Rajo Develohan waa haweeney u dhalatay dalka Hindiya, wuxuuna alla siiyay sanadii 2008 gabar ay ku magacawday Naveen. Markii ay gabadha dhalisay Rajo Deva waxa ay jirtay 69 sano, balse markii ay dhalisay ayay waxay ku sigatay in ay dhimato. hase yeeshee Allah ayaa badbaadiyay, waxayna ku faraxsan tahay inay gabadhan haysato, waxayna sheegtay inay u guuri doonto markii ay gaarto 15 sano jir. Dalijander Kaur markii ay dhashay cunugan sanadii 2006 waxay noqotay haweeneyda ugu da'da weyn caalamka. Inkastoo aysan Dalijander aysan hubin da'deeda saxda ah, balse dhaqaatiirtu waxa ay xaqiijiyeen inay ninkeeda ka yartahay 7 sano, wuxuuna ninkeeda da' ahaan jiray xilligaasi 79 sano. Labadan lamaane ayaa waxay isqabeen muddo dhan 46 sano, mana aysan awoodin inay wax u wada helaan, balse alla amarkii waxay qaateen daawooyin taasoona keentay inuu alla siiyo gabadhan yar ee quruxda badan. Omari Banwar muddo dheer kadib waxay dhashay Omari 2 cunug oo mataana ah, waxayna isku dayday inay isticmaasho daawooyin si ay ubad u dhasho, balse ugu dambeyntii alla wuxuu siiyay wiil iyo gabar oo mataana ah sanadii 2008, waxayna xilligaasi jirtay 70 sano, waxayna ayada iyo saygeeda heleen farxadii nolosha ay muddo dheer raadinayeen. Adriana Ilisko markii ay gaartay 66 sano ayay uur qaaday, waxay ahayd macallimad wax ka dhigto jaamacad. Markii uu adkaysan weysay culayska uurka ayay jaamacaddii iska dhaaftay. Adriana ayaa waxay dhashay 3 cunug oo mataana ah, balse 2 ka mid ah way dhinteen markii ay dhasheen, waxaana u hartay gabadhan ay ugu magac dartay Eliza. Maria del Carmen Busata Dolara Maria waxay ahayd haweeneyda ugu da'da weyn caalamka xilligaas, waxayna dhashay sanadii 2006 2 cunug oo mataana ah, waxayna xilligaasi jirtay 66 sano. kadib markii ay isticmaashay daawooyinka wax lagu talaalo ayay waxay qaaday uur, balse nasiib wanaag markii ay dhashay ayaa waxa ku dhacay cudurka kansarka. muddo yar kadibna waa ay dhimatay, waxaana caruurtii la wareegay reerkeeda. Elizabeth Lazy Adney waxay u dhalatay dalka Ingiriiska, waa 66 sano jir, hanti badan ayuu alla siiyay. muddo dheer kadib waxa alla ku maneystay sanadii 2009 cunugan dhabta u saaran. sida ay sheegtay dadku in badan aad ay ula yaabeen, balse waxay tiri da'deedu muhiim ma ahan ee waxa ii muhiim ah inaan ubad helo. Ingrid Roning waxa lagu soo qoray joornaalka ka soo baxo dalka Jarmalka sanadii 2005 in haweeneydan oo 66 sano jir ah ay dhashay 4 caruur ah. haweeneydan ayaa hore u soo dhashay 13 caruur ah oo da'doodu u dhaxayso 10 jir ilaa 44 sano jir. caruurtan afarta ayaa haweeneydan waxay ku dhashay qaab talaal ah, waxayna dhaqaatiirtu sheegeen inay dhibaato badan kala kulmi doonto, balse nasiib wanaag waxay dhashay ayaga oo caafimaad qaba. Memnuni Tiryaka waxay noqotay Memnuni haweeneyda ugu da'da weyn dalka Turkiga 2016 markii ay dhashay ayada oo 64 sano jir ah. ayada iyo saygeeda oo 62 sano jir ah waxay ahaayeen inay ubad raadinayaan in ku dhow 35 sano. ugu dambeyntiina waxa alla siiyay cunugan, waxayna u qaateen markii hore uurkani inuu yahay mid aan xaqiiqo ahayn. Haya Shahar waxay u dhalatay Israa'iil, waxayna muddo 46 sano ah ayada iyo soojkeeda Shamu ay raadinayeen inay qaado uur, hase yeeshee ma aysan ku guuleysanin, balse markii Haya gaartay 65 sano ayay ku guuleysatay inay uur yeelato, waxayna dhashay cunugan, balse waxay uur ku qaaday qaab talaal ah, sidaas ayayna ku dhashay. Anatolia Firdella waxay u dhalatay dalka Itaaliya, markii ay dhalisay waxay jirtay 101 sano, hase yeeshee haweeneydan ayaa horay u soo dhashay 16 caruur ah, balse muddo dheer waxaa ka joogsatay dhalmadii, waxaana sabab u ahaa inaysan muddadaasi dhalin cudurka kansarka oo haweeneyda waxyeelo badan u geystay. waqti dheer kadib waxay qaadatay daawooyin, waxayna ugu dambeyntii ku guuleysatay inay cunugani dhasho ayadoo da'deedu ka badan tahay 100 sano. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.